بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا تاريخ أينو كغا ورمي دونو هوغاميه لباد دولة عباسية أبو جعفر المنصور أو مقعيس ربط أيها عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه wuxuu ku dhashay kuna barbaaray tuulo lagu magacaabo Xumayma kuna taali daafaha Shaam oo kamid ah dhulka maanta Urdun halkaas ay qoyskiisu deganayeen xilligii ay talada haysay dawladii reer Bani Umayya bishii Safar sanadii 95aad ee Hijriyada kuna beegnaa sanadii 714aad ee miilaadiga waxa dhashay hooyo boojimo ah oo barbar ka soo jeeday laguna magacaabi jiray Salaama wuxuu ahaa khaliifadii 20aad marka la tiriyo wixii hogaamiye la aqoonsaday ee isaga dambeeyay oo isaga haray xilkii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu baneeyay dhinaca kale wuxuu ahaa hogaamiyihii ama khaliifadii labaad ee dawladda Cabbaasiyiinta saan soo tilmaanayba oo walaalkii Abul Cabbaas As-Saffaax oo ka daayaraa ayaa xukunka ugu horeeyay shakhsigan ama hogaamiyahan aan ka hadlayno ma aha hogaamiye iska caadi ah dhabahantii waxa lagu tilmaamaa aasaasihii dawladda Cabbaasiyada taasoo qarniyaal badan talada muslimiinta haysay waana ninkii dhisay caasimadda Facaweyneed ee Baghdad wuxuu talada muslimiinta la wareegay bilowgii sanadii 137aad waxaana tii loo timid oo uu geeriyooday bishii Shawaal gugii 158aad ee Hijriyada sidaas daraadeed wuxuu talada muslimiinta hayay muddo 22 sanadood oo wax yar dhiman wuxuu dhintay isaga oo 63 jir ah waana da'dii ay ku dhinteen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saddex khulafadiisii kamid ah Abu Ja'far wuxuu ahaa nin haybad badan oo go'aan adag dhibaatooyinka soo wajahana u dhabar adayga feejignaan badan oo mar waliba heegan ah oo arrimaha dawladda iyo dadweynaha u soo jeeda wuxuuna ahaa dhanka kale nin dhaqaalaha iyo hantida guud tashiila oo aan ogolayn in lagu ciyaaro wuxuu ahaa nin dadka baahidiisa ka warhaya oo haddana dhaqaalaha bixiya si danta ku filan oo aan ka badbadis lahayn waxa lagu sheegay marka laga soo tago eedihii dhanka siyaasadda nin dhowrsada oo xalaal miirad ah oo cibaadeysta oo aan gurigiisa u ogolayn heesaha iyo waxyaalaha la tumo waxa ugu weyn ee hogaamiyahan muslimka lagu xasuusin karo wuxuu ahaa aasaasidii uu aasaasay maktabad aad u weyneyd oo cilmiga lagu ururiyo lana oran jiray gurigii xikmadda markii dambana boqor Ma'muun oo uu ahaa ayaa sii balaadhiyay oo heer caalami gaarsiiyay arinta cajiibka ah ayaa waxa ay tahay inaanu ahayn shakhsi waqti badan siiya raaxada iyo dhageysiga heesaha loo qaadayo iyo la baashaalida haween badan oo xaasas iyo suriyada isugu jiray oo isagu hal xaas buuba lahaa muddo 10 sano ah gabadh iyo xaasas kale looma ogolayn waayo maxaa yeelay haweenadiisii markii uu guursanayay ayaa waxa ay la gashay ballan qoraal ah taasoo u dhigneyd inaanu la guursanaynin samaysanaynin gabadh suriyad ah qoraalkaasna meel uu ka maro ayuu garan waayay culimadii oo dhanna waxay u sheegeen inuuna jebin karin oo ay tahay axdi ay wada galeen oo saxiixan oo markhaati leh 10 sano oo boqor ahaa ayuu halkaasi xaas lahaa iyadoo u dhashay labadiisii wiil Ja'far iyo Mahdi oo kaliya markay dhimatay ayuu laba dumar guursaday saddex gabdhood oo suriyadana uu samaystay intaas ka bacdina dhowr caruur ay u dhaleen run ahaantii qisooyinkiisu waa kuwo wada xiiso leh oo aynan soo koobi karin balse intaas ayaan ku joojinaynaa muuqaalkan isaga ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh